السلام عليكم صاحب يالكسو دوادا وردقدق وهدنا سو غاري فضلان هداد kanaalkeena ku cusub tahay subscribe saar si ay noogu noqoto dhiirigelin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay isagoo la daalaa xanuunka COVID-19 muriida federaalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud laga helay caabuqa COVID-19 maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyay xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay calaamadihii COVID-kana ma laha madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay waxaana si caadi ah u wadan doona hawlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegida qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira COVID-19 madaxweynaha maanta laga helay 3 maalmood ka hor laga helay muhiimaddu waa madaxweynaha sidoo kale filla Soomaaliya ayaa iska ankirtay inayba kulan la sameysay dowladda Yuhuudda ee Israa'iil filla Soomaaliya ayaa qaab gabasho lahayn ku diiday inay kulan la qaadatay dowladda Israa'iil halkaasoo cadeymo badan oo la helayo oo la xiriira saxaafadaha caalamka iyo saxaafadaha Soomaalida iyo ilawareedyo kala duwan sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Israa'iil Yair Lapid إسرائيل ما إمارات كي كل احتالا ما إسرائيل هدي أي نقطة إن سومالي ما دام أن حرير دبلوماسيات بالهين إسرائيل هدي أي نقطة إن لا تجنا وحلا قرينا يماها لكن لما تجين هذا وحلا تجي وإمارات كعربتها إمارات كانوا حكوية الله هلك إمارات حكوية له إسرائيلنا إمارات كم احتالا dhagaystayaal waa naga intaas warkii degdeg ahaa ee soo laabashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto warkan xiga mahadsanidin